Anqaarta maanta meeshaan aan imaanay meeshaan waxaa la yidhaha waa sunflower farm waaye ama gabaldayaha waa ujeedaan maxaa la yidhaha meeshaan waa meel maasha allah meeshaan waxay ku taalaa dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada maxaa la yidhaha Birmingham maanta maxaa la yidhahdaa meeshaan ayaan kasoo qabanaynaa waxaana waxa ujeediin waa saliidda maxaa la yidhahdaa ingiriiska dhan meesha ka imaatay meesha laga keeno waa kana gabaldayahan waa ujeedaan very beautiful place meeshaan waxay kaloo caan ku tahay filimkii waxaa lagu sameeyey maxaa la dhahaa oo shaaruqaan meeshaan lagu sameeyey waxa shinnida feeri waxaas ujeedaan waa shinni malabka maxaa la yidhahdaa saafi isagoo ay ujeedaa shinnida direct soo ma arkaysaan shinni malabkeeda shubayso laga shabahaaya arkaysa waaye marka meeshaan waa very beautiful place waaye dadkii yaqaana maxaa la yidhahaa filimkii maxaa la yidhahaa shaaruqaan heestii shaaruqaan iyo kajal meesha lagu qabto halkan waaye ya maasha allah waa meel oo very beautiful place waaye waa meel maxaa la yidhahdaa aad iyo aad jawigeeda maxaa la yidhahdaa oo u macaan yahay waaye waxaasoo dada ujeediin waxay u soo baxeen inay gabaldayahaas inay daawadaan iyo qaabka shinnida ee maxaa la yidhahdaa ay u samaynaysa malabka gabaldayahan waxaa waaye macno fara badan ayuu leeyahay mid waa quruxda maxaa la yidhahdaa oo maxaa la yidhahdaa oo dadka indhahooda inay ku doogsadaan aad iyo aad ay u fiican tahay quruxdiisa midda labaad waxaa laga sameeyaa saliid cadayda saliid waxaa jirta la yidhahdaa sunflower oil saliiddaas ayaa laga samayn karaa midda saddexaadna waxaa waaye shinnida in ay maxaa la yidhahdaa ay cunto kadibna shinnida oo laga manaafacsado maxaa la yidhahdaa malabka marka gabaldayahan waxaan samayn karnaa waddankeena oo kale waa lagu abuuri karaa waa waxaan waqti in la gelsho oo lacagna la geliyo ay u baahan yihiin ilaa intaas ujeedaan oo dhan waxaasoo dhan waxaa waaye waa gabaldayaha waaye soo ma arkaysaan waxaasna ujeedaan ilaa inta ishaada ay ka marqayso dhan waa ujeedaan waa baalkan waaye marka meeshaan magaaladan baalkan ay caan ku tahay waa meel maxaa la yidhahdaa run ahaantii dad badan ay u imaadaan thank you marka meeshaan waa meel aad u qurux badan haddii lacala aad imaato Birmingham caasimadda labaad ee dalka ingiriiska waxaan idinku dhiirigelin lahaa ama idin kula talin lahaa meeshaan aad imaataan waxaa kaloo ay ku fiican tahay most importantly meeshaan waa free entry wax lacag aad bixinaysa ma jirto inaad beertaan aad imaato oo aad micnaha aad ku damaashaado oo indhaha aad ku doogsato oo aad daawato maxaa la yidhahdaa qaabka ay shinnida ay u shaqayso waa ujeedaan dad walbo meeshaan joogaan waxay u imaadeen meeshaan inay iskaga baashaalaan caruurtiyaa la keenayaa wax walba la keenayaa waa meel aad u qurux badan waaye maanta inkastoo jawiga maxaa la dhahaa oo xoogaa aysan iftiin qorax aysan jirin laakiin waa ujeedaan waxaa dad meeshaas joogaan soo ma ujeedaan marka heesta shaaruqaan iyo kajal dad qofka xasuusto gabaldayahan laftirkeeda meeshaan laftirkeeda ay ku cararayeen marka meeshaan waa meel maxaa la yidhahdaa oo aad iyo aad beautiful ah waaye waa meel maxaa la yidhahdaa aad iyo aad u qurux badan waxaan dhihi lahaa maxaa la yidhahdaa meeshaan soo booqda ingiriiska run ahaantii aniga sanad waxaa jirto sanadka lasoo dhaafo mar ayaan imaaday laakiin xilligaan imaaday waxay ahayd xilli oo December ahayd oo maxaa la yidhahdaa oo waa xilliga oo winterka run ahaantii aad iyo aad ayaan u dhibsaday meesha waxaana dhahay haddii markaas la weydiin lahaa la dhihi lahay ingiriiska ma kula talan lahayd qof inuu soo booqdo ama oo damaashaad u imaado waxaan dhihi lahaa war meeshaan isku imaanina meeshaan waa meel dhimato waayo ingiriiska xagga hawadeeda markii winterka ay noqoto oo qabowga la gaaro waa meel aad iyo aad maxaa la guryahooda micnaha dee guryo oo loo habeeyay maaha inay winter tahay qof Sweden ka imaada ama Scandinavian ka imaaday oo ingiriiska imaado run ahaantii aad iyo aad ay ugu wareerayaan maadaama ay guryaha ay aad qabow u yihiin oo macnaha xagga heaterkooda iyo waxooda infrastructurekooda waa very low waaye laakiin haddii aad summer imaanayso ma igula talin lahayd haddaa tiraahdaa yes summerka meeshaan soo booqo waa meel English speaking country waaye waa luqadda ingiriiska lagu hadlaya waa dad macnaha dee xagga isdhexgalka Scandinavianka ingiriiska shaqo iskuma lahan Scandinavianka markii aad train la raacayso ama public transport ama meelo qaarkood marka ku aragto dad camera daashada xataa ka cararayo oo macnaha aanan jecleen macnaha dee oo wax laga duubo iyo ma jeclo laakiin ingiriiskan dadkan haddii aad maxtaa public transport ka gasho salaan aad ku bilowdo
waaba dad ina istaqaanin camal ay kula sheekaysanayaan waa dhaqanka Soomaalida camal waxay badan oo dad furfuran waaye oo macnaha dee isdhexgalka bulshada jecelo inuu dad la sheekayaan jecel waaye laakiin Scandinavian-ka tanin hadduu galo qofkan ma jeclo in la hadla xataa wuxuu ku leeyahay warniyo maxaa la dhahaa personal space-kiga fareyga soo gelin laakiin dadkan waa dad fahansan dhaqanka iyo macnaha dee adduunyada inay isdhex gasho fahansan waaye waa dad ilbax ah waaye waa dad fahansan macnaha dee adduunyada macnaha dee in isdhexgalka inay ku dhisan tahay waa meel very beautiful place waaye marka meelahan parkan oo kale marka waa meelaha ugu fiican oo aan jeclahay haddii aad lacala aad imaato maxaa la yiraahdaa UK fadlan meeshan soo booqo meeshan waxaa kaloo jooga ari ayaa joogo iskala shanidan kaliya maahan waxaa jooga ari ayaa joogo caruurta kale aad keeni kartaa waxaa dhigi kartaa macnaha dee caruurta aan qurbaha joogo aan weligood aan ari iyo waxaas aan arkin waxaa dhigi kartaa maxaa la yiraahdaa imaada waad arki kartaa orgi waashaan waxaad tusinaysaa xoolahan aad tusinaysaa xoolahan oo kale waxa waaye ilmaha qurbaha way jecel yihiin arigan soo mujid waa ariga gaaban soo mujid canaadka waxaan maleynaa inuu yahay nooca albaynka ay dhahaan albayn okay ariga caanaha qayb kamid ah marka meeshan waa meel beautiful dadka sunflower kaliya waxayna cunayna mala arigan marka meeshan waxa waaye soo booqda anaga hadda taa meesha marayna ku soo leexanay laakiin meesha waa meel very beautiful place waaye